markii aan weydiiyay Mawaahib Caasha siday u dhimatay waxay ii sheegtay iyadu inay indhaheeda ku arkaysay 4 qof oo meesha ka shaqeeya iyo inan yar oo ku jira qolka Caasha ruuxayana sariirtan ay saarantay Caashana ay kaadi ka socoto waxay kale ii cadaysay 30 daqiiqo ka hor in la siiyay kiniinkaas oo la yiri waa kiniinkii madaxa gurigan iga dambeeyay waxa ka dhacday sheeko murugo badan oo saameysay Soomaalida waqtigan caruurtooda ku korsanaya qaaradda Yurub halkan waa magaalo ka mid ah wadanka Netherland qoys Soomaaliyeed oo degan magaaladan ayaa loo sheegay gabadhoodii oo 16 jir ahayd in gacanteeda isku dishay kadib maalmo kooban way ku jirtay gacanta hay'adda sooshiyaalka waa hay'ad inta badan gacanta ku haysa caruurta ay waalidkooda isfahmi waayaan Aisha oo 16 jir ahayd waxay ahayd gabar da'yar oo waqtigan shaqayso waqtina wax barato kana mid ah ciyaartooyda karatayga wadankan u ciyaaro labadeeda waalid waxay sheegeen inaysan marnaba ku qanacsaneen warka dawladda ah ee ka soo yeeray dawladda kaas oo ku saabsan in Aisha ay gacanteeda isku dishay